magaalada Kismaayo kulan looga hadlayay arrimaha dhulka ayaa waxa ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland. kulankan oo ahaa mid looga hadlayay sharciyeynta dhulalka Jubbaland iyo ka fogaanshaha arrimaha khilaafaadka dhulka oo ay soo qaban qaabisay hay'adda dhulalka Jubbaland ayna ka soo qayb galeen xubnaha labada gole ee Jubbaland maamulka degmada Kismaayo ururada bulshada rayidka iyo marti sharaf kale ayaa maanta ka qabsoomay magaalada Kismaayo iyadoo inta badan kulankani looga hadlayay sharciyeynta dhinaca dhulalka Jubbaland iyo sidii shacabka reer Jubbaland ay u sameeysan lahaayeen sharciga dhulka si ay uga fogaadaan arrimaha khilaafaadka ee inta badan ka dhasho dhinaca dhulalka. waxaana ugu horeyn kulanka ka hadlay madaxa Milestone Nuux Cabdiwahaab oo sharaxay waxyaabaha ku saabsan kulankani. sidaas lamida waxa ayana la sameeyay documentation-kii lagu shaqayn lahaa ka bilaabato codsiga ilaa laga soo gaaro warqadda milkiyadda oo idan loogu talgasay ku socon lahayd. waxaa sidaas oo kale la dhameystiray software-kii ama data-dii dhulka lagu maamuli lahaa oo hadda kadib loo guuray in laga guuro analog-gii qaabka hore feelasha loo keydin jiray in loo guuro qaabkan casriga ah ee suurtagelaya qofka meel kastuu joogo inuu la socon karo hooskiisa iyo xaaladda ku sugan yahay. afarta arrimood waa suurto gashay alxamdulilah muddada dheer. maantana waxay soo gaartay documentigii laga bilaabay application-ka codsigii hore in mirihii uu ka dhashay ay maanta diyaar yihiin 215 title deed ama milkiyadeed in la bixin karo oo dadkii ay qaateen. taa markaan dib ugu soo noqono quraayada halkiinan hadda ka muuqato arkaysaan magaalada Kismaayo waxa kor kaga wareegsan waa arrin garoorkii weeye. gudoomiyaha degmada Kismaayo Ibrahim Maxamed Yuusuf Timajil ayaa sheegay in ay muhiim tahay in shacabka reer Jubbaland gaar ahaan kuwa reer Kismaayo ay sameystaan sharciga dhulalka si ay uga fogaadaan arrimaha khilaafaadka dhinaca dhulalka. runtii waxa waaye saaka waxa loo yimi qaybtii ugu horeysay oo sabr loogada in la bixiyo. nidaamka waa u jeedaan hadda gurigaaga waxaad ka helaysaa oo mobilkaaga aad ka helaysaa meesha ku yaalo iyo lambarkiisa iyo farsamadiisa. waa soo dhaweynaynaa shaqadu koow ma joogto waa bilow. dadkeenu qof walba wuxuu leeyahay bal adigu iska hubidi waa dhamaatay waa hubsan tahay baasha goosta oo waxaad yeelaysaan dawladana lacagta siiya idinkuna sharciyeysta dhulka. madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Sultan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud ayaa shacabka reer Jubbaland ugu bishaareeyay nidaamka dhinaca dhulalka ee xilliga socda uu yahay mid wanaagsan isla markaasina loo baahan yahay inay ka faa'iideystaan shacabka reer Jubbaland. war haddaad guri sharci darro dhisatay ama dhul dawla ka dhiso ama musiibo ka dhiso imoow halgu sharciyeeye ma dembiya سؤال السويدين هرت ولا ليالو وحد أول كالخيل لسين قاعن كأجرني أنا كنا نقول مرتين قاعن كمحمد إيش بحب كنا نقول لنا قاعن كالله سعيه ما بحب إيش كنا نقول لنا إذا كان نقول تيانا بل عقل البلاد فيريا وحد قلب الصبح الباب مدحوينها الباب كيجا loo taagnaay ilaa marqaatiga door baan tukayn had cabsi ilaa inagu waramaya warbeen miya sheegaya war dhul dawlad deganahay hanti baan naga sheegan la ka dumin been ma ku sheegaa abu siiban deganahay hanti baan naga sheegan loo sharciyo la ka dumin been ma ku sheegaa inta soo la luusha wadana qaata noo sharciyo been ma ku sheegaa been ma adoo ya annaga ya been ku sheegin هذا واحد لا لوس الغاربين وبين الغاربين ولقول الغاربين صبر الله وشرعيه سن ودور له وشان وقال وزير سعيد برلمان سعيد او نظام سن waxa laga marabo kaalay dhulka sharci darada ku dhisatay kaalay sharciyeeso. Maxamed Qaasim Ali Waxar TV-ga Somali Cable magaalada Kismaayo.